السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا لهانتي مداوض يالكسو دواد قضبضا وركينا وقدور كرون قضبضا وركو وقدور كرون وحاكمدا قرحيشان عسكري كودنتين او كدع الدولات كديغان كدنانا يا شبيلة هوسي وزير كنا واقعين واسك عزلي حكومة حسن علي قير سيديتني كوقف او دمشو يداوع كن نقضي دقال دي بغسو عسبونا ديغان كمويالي دولة قدر او بحين يسل عقلو كالففوري موشينك كدنا فرماجو قضبضا سيو قضبك لا ايدين قريننا يذكو مقلي دونتان برامجكينا ادوية بيدمو وننقف ايا دمشو يداوع كن نقضين دقال دي بغسو عسبونا ديغان كترسان ودنك ايتوبيا wararka ka imaanaya mandiqada mooyaale ee dhacda koonfurta wadanka Itoobiya ayaa sheegaya in dagaalo culus oo halkaasi ku dhaxmaray maleeshiyaadka maamulka Oromiya iyo shacabka Soomaalida ay sababeen dhimasho ugu yaraan 21 qof. مسؤول هذا الدولة حبشة إثيوبيا يا ورباهين تأشياء إن كمان ناقص الدجاجة دجمة مويالي أو بركعين دنكا ودنكا كينيا سي وجبات سدان رصاص تإسداف سنيان دنعيدا كود على مدى مويالي وكالة دورك إثيوبيا يا فافسي إن سيدتني كوقف أي دمشق داوع كل نقدين دجالة مويالي كسعودة وغيران شنكون أو قوس أيالا شيء إن أي كبركعين دنكا إثيوبيا جوجيال وشيء ورباهين تيعيد مدى أرمدى الدولة إثيوبيا هوستكا أيا جوين dukaamada ay lahaayeen Soomaalida ilaa cirka isku sii shareeray khilaafka u dhaxeeya hoggaanka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa khilaafkaasi dabada la galay dawladda shisheeye mooshinka ka dhanka ah Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha dawladda federaalka ayaa qarashka ku baxay waxa bixisay mid kamid ah dawladaha khaliijka ee ka qayb ah isbahaysiga hareereynta ku sameeyay dawladda Qatar ila wareeda ayaa sheegaya in dawladda Imaaraadka Carabta ay tahay maskaxdii ka dambeysay mooshinka si meesha looga saaro Farmaajo iyo qeyro oo kamid ah لفيا دولة قطر سي وكيلة الدولة قطر الصومالية اللي بدبادية أيو تميم بن محمد أمير كقطر وكل الله يا شيخ حسن علي قير وحنا نلفليا إن حكومة الدوحة أي بحسو قرش كي لو كلا فرفور لها موشين كلا كان فرماجو متكمدة قولها وزيرة حكومة حسن علي قير يا كل واقعي إنه اسكعزري حلكو وهي كدمر كي دولة فدرالكا فرقلينكو أبورتين مقالة وكسو جيدي عبد الفتاح إبراهيم جيزي وزير كهولها جود دولة فدرالكا أيا سر رسمي وحقيقي inuu iska casilay xilka wasiirnimo isagoo oo ku eedeeyay xukuumadda inay faragelin qaawan ku hayso maamulka isku magacaabay koonfur galbeed isla markaana ay caburin iyo afduub ku hayso shacabka magaalada Baydhabo isagoo ka hadlay shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada Muqdisho ayuu ku sheegay inuu ka sii mid ahaan karin xukuumad hurinaysa colaadda magaalada Baydhabo iscasilida Cabdi Fataax Geese ee imaanaysa xil ciidamada xabashida ee Itoobiya ee Arbacadii la soo dhaafay Baydhabo ku weerareen Muqtaar Row ee gacanta u galiyeen dawladda Farmaajo waxaana wixii xilligaas ka dambeeyay magaalada ka dhacay dagaalo iyo isku dhacyo rabshado wata warar dheeraad ayaa ka soo baxaya qaraxyo xoogan oo ciidamo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya lagula beegsaday deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose qaraxyo isxigay oo ka dhacay meel u dhow deegaanka Jazeera ayaa sababay dhimashada ugu yaraan 5 askari oo ka tirsan ciidamada militariga sida ay sheegeen ila wareedyo wararka ka imaanaya duleedka Jazeera ayaa xaqiijinaya in laba qarax lala helay gaadiid dagaal oo ka yimid dhanka deegaanka dhanaane kuna sii jeeday magaalada Muqdisho wadada dhanka xeebta marta ee isku xirta Muqdisho iyo Marko ayaa bilihii la soo dhaafay marti gelisay weeraro 10 askari lagu dilay isbuucyo ka hor ayay ahayd markii uu qarax ka dhacay dhanaane ay ku dhinteen laba jeneraal oo ugu caansanaa Cumar Dheere